wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in malaayiin dhalinyaro Soomaaliyeed ah ay u diyaar garoobeen sidii ay u difaaci lahaayeen dalkooda haddii ay Itoobiya duulaan ku soo qaado. Maalmo uun kadib markii taliyaha ciidamada Itoobiya Birhanu Jula uu ku jeesjeesay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, Jula iyo Abiy Axmed waxa ay iska indhatireen in dadka Soomaaliyeed ee ku nool Jigjiga, Buurama, Hargeysa, Boosaaso, Kalkacayo, Baydhabo iyo Kismaayo ay dhistaan hal qoys oo ay midaysan yihiin diin, dhaqan, af iyo ujeeddo wadaag. Waxay u diyaar yihiin oo ay sugayaan calaamadda aan ku difaaci lahayn qaranka, ayuu Nuur ku yiri qoraal oo soo dhigay bartiisa Facebook-ga. Waxay dhayalsadeen awoodda dhabta ah ee qaranka Soomaaliyeed oo aan lagu qiyaasi karin awoodda dowladeed oo kaliya. Haddii Jula uu ku xisaabtamo awoodda kumanaan ciidan ee labisan iyo taangiyada uu koobay, waxa uu ku guuldareystay in uu garwaaqsado in ay wajihi doonaan malaayiin dhalinyaro ah oo geerida ka doortay nolosha oo aan ku tiirsanaynin kaalmo shisheeye. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in Itoobiya ay guuldarrooyin kala kulantay duulaankii ay dhowaan ku soo gashay Soomaaliya, casharadaasi oo la mahadiyay laguna barta kulliyadaha ciidamada ee adduunka.